Bismillahirrahmanirrahim. Safar dheer kadib shaqo adag iyo adkaysi iyo in ka badan 94 shuruudood oo la xiriira dib u dhiska hanaanka dhaqaalaha oo lagu guuleystay waxaa maanta noo suura gashay inaan la soo noqono xiriirkii aan la lahayn hay'adaha dhaqaalaha adduunka. Waxaa ka mid ah Bangiga Adduunka, hay'adaha lacagta adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, kadib go'aankii maanta ka soo baxay maamulka hay'adda lacagta adduunka kaasoo go'aamiyey in Soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan. Waxaan mahad u celinayaa dhammaan intii suura gelisay, kaalmaysay, ka shaqaysay, ka qayb qaadatay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay guusha maanta noo soo hoyatay oo uu ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaasha dawlad goboleedyada, xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliyeed, golaha wasiirada dawlad goboleedyada, golaha wasiirada dawladda federaalka, shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo bixiyay canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dawladda federaalka Soomaaliya, taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummadda Soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go'aankan farxadda leh ee noo soo hoyday. Waxaa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo waddamada aan saaxiibada nahay oo si hagar la'aan ah noogala shaqeeyey sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah. Intii lagu guda jiray geedi socodka deyn cafiska waxaa la sameeyey isbeddello badan oo la xiriira hanaanka dhaqaalaha dalka. Tusaale ahaan, dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dawladdani ay shaqada bilowday 248 milyan. Hadda waxa uu marayaa 470 milyan, iyadoo go'aanka maanta la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo geli doona. Dakhliga markii dalka dawladdani ay shaqadiisa qabatay waxaa aruurin jiray 21 hay'adood oo dawli ah iyo 7 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad shacbi ay leeyihiin, halka maanta dhammaan dakhliga dawladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dawladda Soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo kaliya. Miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida, waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin. Mararka qaarna dawladdu waxay geli jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn. Maadaama aan la wada bixin jirin kharashaadkaas dawladda, deymahaasi waxay kor u dhaafayeen 100 milyan oo gudaha kaliya ah marka aan dalka nimid. Sida aad la socotaan 3 sano ee dawladdana xukunka haysay, ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray. Sidoo kale dawladdu ma gelin wax deyn ah muddadii